الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من فرحسنا ما تينا كسر عيب حفلة وروح يا رخوص وتكونات ما تروح على حاجة إلى طريق الكوة سراكيل حدق قادنا هي وكوة وترابي سوماليلاند ومنتج يحدد الله وتعرف خير بلاد كلية كسبوا من تلو عارف كسبوا ما قاعد ويست بونتو أمريكا سان هرسون إنجليزنا فروزي أوروشا يكوا كلام متكا ما لهم متبع أساسه وحاسه هوالا من ولي كده أساسي أنت محيسنا إلى نهيسني وحرية بدو كل إلا أساسي ستة بقرة سنة لا بقرة سنة كون وأنا مكان لا يدنا هاي جادي دنا هاي إلكترونيكس دنا هاي يا إنترنت كنا يسمون يا أقوى طوال إنه ولي كبر هذا ما كان يسويه إلهي ذكي دعيتنا وتكبر حظ وحكش شيء موتا خاطر سامي حسنات كبعد يقول هذا خلود دايا ما تعرف بلا بنسى تعي إنسان قدر تقول حيله ينتهي كان موتا مخاوة تركي وحكوا ما تجي أنا فرحان نوعها لما يردينا ما تركي شكو يقولي وتعريض بقى مال صور مرين لابية توصلوا ولا سكندرية ولو إيراد معبودات أفر سنة بيران وجامعة والحيطة هل سنة وشغال قرار وتطبيعته هل سنة وليس كاد وستين توصل قال كي وحياة الوقت هذا الكلام وين أما جامعة الشباب في المكان هذا دخلت تيجان تضوي أو سوكي مركا عمري وبيران وقولي والله تقول له أي تحديث هايسته أو مالته قال يسهلك الدور يسي وحكوف أحسنها وتاريخ لنا كوه إن يحضر الصومالي لاندي أنت صوص محسوب الجامعين وأنت سوق ابني أي ما تكمدي هي قال بوستا كونتور يا أخلص من الفريق إلى نقاط سراكيب الكلام وحكوف أحسنها وإيران هذا القريسة عيدك السوماليلاند أساسا أول كيس أهلية سيسترشنا شيء يتجنب كل يسقى البقال يصلح الطريق والله أساسا أول دفاعي حتى سيعيد تبعية الصوم لنا ومحلوك وما نعولها وما يعوينا ولا يرتدي كان الخرقة أما ككلي وهذا البدري أو كوريا سجار بقول يكوريا فرث كي مكين كريسنا شغالين وشيء كريسنا لو بحيي برجال كإيران حابس الثاني إيران مصري وما كان ده بقولات كنا هاي وهذا أفريقيا فرث كي مكين حابس له هنتريه وتقريبا نقطة لو بدري سوالي سكاوت وإلا اللي حكي هذا سوالي سكاوت ها markii dambe noqday aasaasii iyo tababarkii iyo nuxurkii ciidankii dowladdii loo jiray Somali Republic dagaalada dowladda galay waxaa maanta inoo koowa taariikhda ciidankaasi ilaa leeyahay qarni ku dhow marka badan qarni dheeraada inay maanta caalamka qaranka qaadeen oo ciidanka soo harmareen gabar Soomaaliyeed inay caalamka qaranka sidey oo ciidankii saraakiisha soo hordhashayna oo taariikhdu waxaa kaloo maanta xafladda mudan oo yar xusid mudan دايرين أنت سوى حبرنيس أحمد الحسن أحمد يا رضوي أحمد الحسن وحج علي يستقبل أركب أسيف هو حق أبو فتير كو قولي يا أحمد الحسن وحد معك ولا هالمالتي حاجات بقول كبوت هرتو وحاليا بدل كودنا أبوي هرتو ده ليس مسلم كا إن قال بالشراء أبوي مشكور والله ayaa suurtagal ahayd ama ay ku dhaawac lahayn kuwa iyo kuwa badan shaqeynaya caalamka gudaha fariid ka mid yahay asbaabkooda waxay ka daaway adigana waa kugu mahadnaqayaa maanta arrintan goobjoogta adeegaysiisa waxa kaloo xusuus badan maanta oo iyaduna inoo koowa in ciidankii shaqa qaran xoogiisa maanta halkan boqol ka mid ah ka baxay oo ah shaqada aan berigeedii oo xigada markaynu intaa kusoo dhaafno xusuusina waxay maanta leedahay
halkan maanta waxaa ka baxaya 5 sarkaal waxaa ka ugu dalacaya 5 sarkaal oo ciidanka qaranka kamid ah oo soo dhamaystay tababar dibadeed chief of staff iyo wax lamid ah muddadii ay xidhigtu dalacaada gaarayeen 3 sano dhamaatay 5 kaas maanta halkan darajo ku qaadanaya waxaa qaadan doona darajo maanta la sii doonaa 14 ka soo baxay Maqale Academy oo Ethiopia soo dhamaystay halkana sanadkana ku jiray oo aan jaamacad galin ee secondary ka baxay oo iyaguna maanta xidiglayaal noqon doona haddii alla yidhaahdo waxaa iyaguna ka bixi halkan ka mid noqon doona oo maanta darajo ka qaadan doona 130 sarkaal oo shaqo qaran ah oo laba xidiglayaal ku bilaabi doona magaalada Ethiopia waxaa kaloo maanta halkan iyadana xusad ku mudan gabadh kamida ciidanka badda oo 2 digrii wadata qof adigo qof 2 digrii wataana 2 digrii gaaraa gabadhaasi 6 sano ama 5 sano ayay ciidanka badda ka tirsan tahay jaamacadda Hargeysa ka baxday intaa waxay ahayd bilaa darajo si u dhacdayba waxay intaa ku dartay waxay ku helaysaa aqoonteeda iyo weerarka soo qaaday darajooyin haddana waxay dheeraysay waxay ka qayb gashay caalamiya oo Rwanda ah waa gabadhii isu taagtay shirka intaa leeg inay weydiiso boorka gaabi maxaa Soomaaliya loo tiraaf waayey taana waa loo tixgeliyay maanta iyaduna waxay qaadanaysaa 3 bilood oo kartamo noqonaysa intaasi waa dadka halkan ka qalanjabinaya oo aan u shaqayn martida miisaanka cusub heer qaran ee ka mid yahay gudoomiyaha golaha wakiilada baasha ee ka mid yahay wasiirka maaliyadda oo ka mid yahay wasiirka xanaanada xoolaha ka mid yahay taliyaha hore ciidamada qaranka iyo dad badan oo kale iyo guddigii garashada saraakiisha oo halka fadhida dhammaantood badankooda ka dhawaayada ahaa oo dhiga shuruucda bilada lagu qaadan karo ta lagu qaadan karo dalacaada شعيرة عيدة بسول قدره مستنبات أو شعيرة يقول لك الفريق ويأجي زي ما تقول الرياض هذا التيم والدنا قضايا وما توحى وكيلك هاي لما والدينتا أعطيه هذا قريب شبيه إنسان ومرة ما يعيب والدينتا يدخل عن غيره هذا ما كمل هاي هذا ما كمل هاي والدينتا أعطيه لك شبيه انت كمان وحا هذا يجري على عرضه عرضه وانو جعيه وانو أهول بريه إذا تولنا نوو كبرتنا هلو ذرح يذكره قالية دفعنا ما انتبه حيسان وعرض فيه سنكين يوتها براه لكم سوغار الله كلية عبد الله العسكر وحن وحياك ورد هذا محايد بواجه عبد الله عسكر مكة ومقرب محال خصوصاً محكم التجديد كانوا به وهلل وكيسي ويوتك على صومت عبد الله على واقبتي ولا عقابي جبتك بقى المسلمين صدح فرد على الشريعة الكهوة لك دادية يعني هو لك قراعي دبنا وحور على المحبسين كبحي وحاول يرين انت بعض الشيء اي اساس في سلوكه انت واحد وديني لحد حق جوجا قرار ما يبصلها مثل قرار ما نيك وديني هنا وحوي انك الناس صاحب شرعيه اي سوق وايه اي ورغود اسكو اتلي هاي اي سوق كالي هاي اي سوق بس يقاله اي ما كنت بحسن ده شو زبيه ومر سو خلاص انت سوق شقري ايات سوق تاعي ولقمت السيارة كبتة أيوة بعض الرياض فراشين إحنا حدو شوية رسول الله كان شيء سوى إلى تشوفي الدرسوي عبد الله يسوي حق الفاقة ما كان مقشان ويعيش والسر الوكر سار كان سوسوائي إبراهيم مقبول هدو عبد الله حالك هو حاس كسر سوى قري
midkoodeba adkaayo geysanaa ninka isaga oo heegakii qaybta ixdaabtaraad ee hargeysa jooga oo maxabuuska hayay oo maanta dalka ka heegala go-aamiyey inuu cabdillaahi la baxuula baxsado oo ama ay wada dhintaan ama ay wada wadaan ka warrama sidaa koodbuur isagoo maalintaa heeganka u leh ayuu 3 qof oo keliya soo diyaarsan iyo laba gaaro oo midhaha ka baxmaaday magaalada 3 haddaba uradoo gaadkii waa kaa daaxdiga qaadanaysaa maanta way ku tahay magacaa ka baxsana waa asas karuwa maana waa ibraahim ragga waxaas ay qabteen waa waalidka aad ku dayanaysaan haddana wuxuu yidhi maxaa suwadii rashiid yeelo iyo sawircii hooyo haddaba suwadii raggaa yeesha iyo sawircoodii intaasaa laga intaa ku dhaafi maayo waa xusuus dushaa ka baxaysa dadku maxay ahaayeen sidee ku ah iyo wax deedeeyo qof waliba noloshiisa maalin guri u higsada oo wuxuu soo maray u gaara waana maalinta halkiisa ku xusan waxaan ku amriyanayaa idinkiiyo waalidkiinba 18 sano 17 sano waxay ahagsanayseen oo ahayd inaad maalin darajo dowlad gaadhaan oo xil qaadaan inaad qaadeen xilkii ugu sharaf badnaa ugu qiimo badnaa oo difaaca qaranka ah oo maanta noqonaysaa saraakiil ciidana waa ku amriyanaya idinkan iyo waalidku kusoo tabcay macallimiintiinii iyo kuwii waxdabaray iyo ciidankii qarankeeda soo hayay iyo macallimiintii ka horreysay iyo qarankoo dhanna waa ku hambaryanaya hambaryada ugu weyna waxaa iska rabo intaasoo dhan baa waalida ragga halkan fadhiya ciday matalaya walay baarlamaanka oo sharciga loo dejiyo oo hawshaa ku shaqaynaysay iyo wuxuu la qoray sharci aan soo seexin dowlaha baarlamaanku may jirtin ilaa halka shaqada may hirgasheen xiddiga may hirgaleen haddaanay sharciga baarlamaanka soo socon may hirgasheen wax laga qabtay haddaan wasiir saacad har iyo habeen soo jeeda xagga lacagaha haddaan baahi joogto isaga loo diray qaranka oo dhan ooga habeen iyo banaan fogay haddaan wasiirada kale ka mid ah xanaanada xoolaha ka gashaaniga mid waliba dhibaato jirta aan har iyo habeen caruurtiisa reerkiisa u moogeen si uu qaar u soo baxay idinka iyo kula mid ah bukaanka ardayga ah ka kala qabanaya dadka waxaasoo dhan sugayaan ee halka fadhiya haddaanay jirin maynaa soo gaadhin iyagana hambalyo iyo ducay ku darayna waddanka qaybta u weynaatay maxaa mustaqbalka ka habayka waa laydin sheego oo laydin daabo intii laydin waxba badan ku dari maayo laakiin adigu maanta waxaan faraxsanahay mar haddaa dhalinyarada soo martay tihiin mar haddaa waayarkaa soo marteen in aan Soomaaliland xornimadeeda iyo nabadgelyadeeda iyo xuduudeeda cadowstiya qalooca ku soo ogeyn gacan u qaada iska daayo inta idinka yeetii goorisiye timaad doontaa saraakiil dadka daafacayo waxaan rabaa inay gacan aamiyo ku jirto oo mas-uulada qaybka qaadatee waxaan kusoo koobayaa Soomaaliland maanta guud ahaan waxaan ku hambalyanayaa intii naga soo baxday oo berita sana noqon doonta intii laydinka kuwaana ku filan idinku dari maayo ciidamada kala duwan baa tegaysaa ciidamada maanta waa da-diina iyo 10 sano iska horreeyey cidda laga rabo in markaa ka qaado 30 sanadood dhowr dagaal ku soo jiray ee farka u tegaysaa ee 30 kuliya asal tala bilaabay taliyaashiina shaqaale nuux kuwii kale ka horreeyey kuwaas la midka maxaa ahaayeen libaax waa isku weerta da-baan tahay laakiin way soo dhisan halkaasay soo gaarsan idinka iyo kuway ka horreeya ee 10 sano inta wax soo baranayay iyagu soo abuureen ayaa ciidanka qaranka boliis iyo asluub iyo bad iyo immigration dhammaantood daada laga rabay xog fuwaya waa idinka ilaahay waxaan rajaynayaa halkaas u diyaarisaan oo qaranka halkii soo gaarsiya ka qaadaan oo waajibkiina si fiican gudataan dalkii dadkooda mahadiyo si gaarna waxaa u hambalyanaa hablaha tobanka ah ee soo jira xayta waxaan faraxsanahay inantii maanta dhashikaanadiisi inay 10 xabood oo wadaanka lagu fateen oo laga siiyey inuu qaado siiyey aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu